aad iyo aad uga xumaa horta hooyo Soomaaliyeed oo laga qaatay 7 caruur ah. waa dhibaato aad iyo aad Soomaalida ugu soo badanayso ilmahoodii si xaq daraa lagu qaadanayo. insha Allah marka waxaa jecel walaalay qaaligaas sida hore ay idinkaga bartay oo channelkana aan muxuu ahaayay aan ku soo zaa'idiyay aan u duceen walaalayna Soomaaliyeed meel walba adduunka joogaan in Ilaahay dhibka ka dulqaado hooyooyinka ciyaalka laga qaatay in ciyaalkoodii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u soo celiyo. maantana jimco waa aan badina salliga nabiga calayhi salaatu wassalaam in ducadeena mid la aqbalo Allah ka dhigo. waa aragteen jimcihii hore Faadimo Buraan barsa ugu duceynay maasha Allah Soomaali Maxamed oo dhan u duceysay qabar khayr qaban oo ka soo baxay iyo hooyo kale ayadana sidoo kale hooyadan weligay ma arkin maanta igu horeysa hooyo 3 sano ilmaheedi 4 sano ilaa 3 sano inta u dhaxayso waa 3 sano way dhaaftay ilaa 4 sano ciyaalkeedii laga qaatay laga heesto 7. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalay qaaliga ku soo dhawaad channelkayga Munays Cooking meel walba adduunka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan rajayna fadlan haddii ay tahay markuu wareysaa channelkayga soo booqanaysid waxaa ka codsanayaa inaad subscribe iyo saarta gambaleelkana furato wixii comment oo raaya insha Allah waxaan jeclahay inaad video ka soo bixisid hadda cusubtana soo dhawaad hadda hore ila joogi jirtana soo dhawaad walaalaha channelkayga gadaal uga soo biiray waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi idin jecel insha Allah dhammaantiin waana wada mahadsantiin walaalihii hore ila joogi jiray iyo walaalaha dambaba walaalay qaaliga ah sida wada ognaa horta hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba adduunka joogaan dhibaato aad iyo aad u badan haysato waxaa idinka codsanaa inaad mar walba soo duceysiin maantana waa jimcada horena waxaa soo qaatay ahayd hooyo Faadimo Buraan alxamdulillah lashkurlah qabar lagu farxo hadda insha Allah ka soo baxay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ducooyinkeena wuu aqbalaa siina duceeya ilmaheeda qaar ka mid ah oo loo soo celin rabo waxaa kaloo arkay hooyo Soomaaliyeed oo aad iyo aad u ooynaysa aad iyo aad oo la qiiroodo wallahi bilaa aada oo la ooyay hooyo kaligeeda oo intaas oo caruur haysato oo 2 ciyaal ay ka yihiin ciyaalka xanuunsan oo saas ay tahayna lagu cadaadiyay oo la isku dayay in ilmaheedii laga qaato ayadoo ooynays Facebook ku arkay shalay waxaa jeclaa inaan ka soo hadlo laakiin soo ii suurta gali weysay waqtiyada dambe waxaa arkay hooyadii daraato ooynaysa alxamdulillah shukrulah in ilaahay oo ka qabtay maxkamaday lahayd oo maxkamadina ay iyada ku guuleysatay oo ilmaheedii loo daayay marka walaalay qaaliga mar walba walaalihiina Soomaaliyeed hooyooyinka u duceeya in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilmahooda u soo celiyo walaalay qaaliga videoga maanta wuxuu quseeyaa hooyo Soomaaliyeed weligay ma arkin gabadhan oo channelkeeda waa arkay channel ay leedahay channelkeeda waa arkay laakiinse uma ogeyn in 7 ciyaal laga qaatay muu ogeen walaalay qaaliga aad iyo aad u xanuun badan tahay walaashiin waxay idinkaga baahan tahay horta inaa u soo duceysiin u istaagtiin garab istaagtiin dhiirigelisiin ee aad iyo aad ugu baahan tahay waa marka ugu horeysa aan arkay waaye kaliya waxa ogaayay ahayd waxa social media isticmaalayo ee Faadimo Buraan kaligeeda ogaa ayadana 7 ciyaal laga qaatay laakiin hooyadan way ka sii xanuun badan tahay maxaa yeelay 7 ciyaal laga qaatay 5 ciyaal la soo gashay iyo 2 lagu qalay oo isbitaalka dhexdiisa looga qaatay hooyo dareemi karta xanuunkeeda xanuunka hooyadan ay dareemayso sidaas ay taana way xanuunsantaa oo qof xanuunsan waaye oo kaniiniyo ku socoto aniga waxaa arkay ayada oo muxuu ahaayay channel kaleento laga soo daayay oo muxuu ahaayay asxaabta la qaybsanayo oo loo duceey la leeyahay hooyadan aad iyo aad u dhibantahay 3 sano iyo jajab yani 4 sano waaye qiyaastii ee ilmaheeda ay ka maqan yihiin oo laga qaatay oo iyada ay dhashay ay arki karin oo haddana ay ugu daran tahay labada yariiska ayadoo midba muxuu ahaayay markii saas loogu qalay haddana ayadoo la qalay markii saas loogu soo bixiyay ilmihii laga sii qaatay waa arrin aad iyo aad yani u xun waaye oo aad iyo aadna muxuu ahaayay walaaleena Soomaalida ee hooyooyinka qaastan aad ugu soo badanayso yani waxba waxaa ka xanuun badan tan ugu xanuunka badanaa waxay tahay hooyo markaas dhashay ilmaheedii la qaatay taas wax ka xanuun badan aniga inay jirto horta ma u maleynaaye waxaana jeclahay walaalihiina inaa mar walba soo duceysin in ciyaalkooda Ilaahay uga soo qaado gaaladan oo xaq darada ku qaadanayso walaasheen insha Allah marka waxaan rabaa inaan qisada xogaa iris soo koobo ee sheekada soo koobo insha Allah description kan soo dhigaa linkskeeda channelkeeda booqda dhiirigeliya u duceeya mar walba garab istaaga oo dhaha xitaa muxuu ahaay wixii markaas awoodin oo qalbigeeda ku dejin kartiin waa hooyo xanuunsan way xanuunsantay waa dareemi kartiin hooyo ilmo laga qaatay aad iyo aad u dareemi kartiin ilmaha markii cadow gacantiisa ay ku jiraan hooyadan waxay leedahay aniga waxaa soo galay wadanka horta oo ilmaha looga qaatay ee degantay waa Ingiriiska marka hooyadu waxay leedahay wadanka Ingiriiska waxaa soo galay 2014 bishii insha Allah 2014 bishii 11 2014 waxaa soo galay 2 ciyaal oo 2 ciyaal laga qaatay 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 2 ciyaal laga qa
labada kun iyo afar iyo tobanka bishii koo iyo tobanaad ee soo gashay yani waa waqti hore waaye abaayadan ay leedahay waxayna lasoo gashay 5 ciyaal ee lasoo gashay markii ay soo galaysay labada kala gadaal ay ka dhali doontaa goormay dhali doontaa markii ilmihii laga qaatay oo waxa ay dhalayso insha Allah marka gabadhan Soomaaliyeed waxa ku dhacday qadartii wax walba horta oo ku qoran markii xab iyo biyo ahayd lagu qoray hadii aa weynaatid mana seegaysid laazim ina martid waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinka xabka ahayd iyo biyaha wixii lagu qoray laazim ina martid waa taas cid celin kartaa malaho qadartu way ku dhacday ilmaheedin waa laga qaatay 5 ciyaal waa laga wada qaatay waxay dhahday hooyadan ay leedahay maxkamado muxuu ahaye maray looyara qabsaday waxay tiri yani wax oo hadda oo kasoo bixi waayay yani wax oo war oo natiijo ama oo muxuu ahaye oo ilmaheedii looga soo qaadi karo ilaa ay hadda waxay tiri waa ku daba jiraa laakiinse ilaa ay hadda wax ka soo baxay ma laho oo waa dadaalayay tiri marba looyaran qaataa sida loo joogiyaa waxay tiri uuran qaaday marka 5taas ciyaalna waxa laga qaatay ayadoo wadanka dhanba joogto 2 sano 2014 ee soo gashay 2016 laga qaatay waana dareemi kartiin marka ilaahay naguma keeno ilaahay subhanahu wa ta'ala horto ilmaha oo soo qaado Soomaaliya oo dhan sabab walba looga qaatabo ilmaha 100% oo badan oo la qaato waa ilmaha laga keeno Afrika wadanka laga keeno marka si walba lagu qaato ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ugu baryeena in ilaahay ciyaalkoodii oo soo qaado oo gacanta gaalada oo soo bixiyo oo duceysiin garab istaagtiin maanta jimco waaye ilaahay subhanahu wa ta'ala u barino dhamaanteena mar walba salaad aad tukateen bariyo walaalihiina Soomaaliyeed meel walba joogan in ilaahay ilmahooda oo soo qaado gaalada marka hooyana xanuunkeeda dareemayso ilmo 4 sano ku dhawaad ka maqan oo adiga dhashay kaligeeda ku nooshahay يعني gurigeeda iyo yani xaajigeeda waa ilmaheedii oo dhan 5 ciyaal waa 7 ciyaal waa dareemi kartaa marka hooyo waxa jecelahay ina hooyadan u soo duceysiin garab istaagtiin qalbiga u dejisiin u soo duceysiin ilaahay caafimaad sariican oo siiyo ilaahay sabarna oo siiyo iyo dulqaad ay ku xamisho ilaa ay ilmaheeda looga soo celin doono marka walaalay qaaliga wallahi bila aadi aan muxuu ahay ugu xumaaday videoga marka arkay mana ogeyn gabadhan channelkeeda waa ka say laakiin soo lama socon intaan oo dhibaato inay qarsanaysay qof oo youtuber soo qaatayna wali ma arkin aniga oo halka youtube aan ka ahayn marka waxa idinka codsanaa walaalahayga qaaliga meel walba adduunka joogtaan inaa u istaagtiin walaashiina u soo duceysiin duco wax ka muhiimsan horta ma jiro oo wax la isku qabanayo aan ahayn wax ka fududna ma jiro maxaa yeelay ma lagu dhahay lacag bixi xoogeen ma lagu dhahay kaliya soo duceeyaa lagu dhahay marka waxa idinka codsanaa inaadan ka karin walaashiina ducada aad ka karin ka soo qaada booskaaga ka soo qaada oo duceysa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciyaalkeedii oo ka soo celiyo aad iyo aad aan xanuun badan tahay hooyo ilmaheedii laga qaato wallahi billahi taala hal wadana wada joogtiin maxaa isleedahay cunugaaga muxuu cunay muxuu cabay ma seexday ma xanuunsan yahay ma caafimaad qaba warwar stress ku dhacay qofka inuu isla hadlo marka hooyooyinka qaar aad iyo aad hooyooyin u adag waaye hooyo waxaa jirta oohinteeda iyo dhibkeeda banaanka soo dhiganaysa iyo hooyo isku koobaysa waxaan leeyahay hooyo walba Soomaaliyeed oo dhibkeeda inay banaanka soo dhigto waxa ka yaraanayo inay isla hadal sameeyso inay iyadii cabursanto in muxuu ahaye maskaxda yani maskaxdan bini aadanka waa sida miraayadii oo kale dhaawac hadoo ka bato way jabaysaa mar haday jabtana bas waay qofka intuu isla hadli lahaa oo dhibkiisa qarsan lahaa waxa fiican dhibkaaga inaad banaanka soo dhigto fikirka adiga ka maqan qof walaalka oo ku jira waxa laga yaabaa in dad qaar ay ku sheegaan wadooyin aad mari kartid oo ilmahaaga aad ku heli kartid marka waxaan leeyahay la iscaburnin banaanka soo dhigto dhibkiina marka Soomaali maxamed meel walba adduunka joogtana waxa idinka codsanaa ina walaalihiina caawisiin haday yihiin kuwa idin dhowne garabkooda aad taagnaatiin mar walba aana firaaqeynin oo aanan cidleenin hadii aad kala dheertiina ducada aad ku soo kabtiin maanta jimco waaye jimcada hore faadum buraanbursa ugu duceeyna ma sha Allah tabarakallah shalaytan waa aragteen qabarka qeyrka qaba oo kasoo bax insha Allah ilaahay iidan waxa ugu baryeena ilmaheeda kala dhamaan sida ay ugu wada dhawaaqeen ee kuwan u siinayaan in kuwa kale oo dhan ay wada siiyaan marka abaayada ilmaheeda ayadana muxuu ahaay oo qaar ka mid xanuunsanayeen oo ilmaheedii loo dhaafay alxamdulillah shukr lawa ujeedin ducada wax ka muhiimsan ma laho wax ka adagna ma laho ducadeen waxay qabatay waa aragteen walaalay qaaliga waxaan jeclahay hadan hooyadan Soomaaliyeed ina u duceysiin oo garab istaagtiin oo
wax walba oo markaas idinka ahaantiin nafsadiina u qaban lahaydana iskaa kar lahayn ayadana aadan kaa karanin marka intaas idinka codsana walaalay qaaliga إن شاء الله مركز فيديو كانوا حاجة على سي شير قري سي سومالي بدنا يو أركتو وصور دعيان مركوا كاسا إنتاس وحنا في عن أدونك ولا لوجيه إن وح والبل سوق قبض وحي أود دعاء بوا ما فهمتين دعاء وما عرفت وح ومهم سن أو قرب قفك أو كسين كرت مركوا على خالق وحيدك قعد سنة إن إلهي عافمات سريعا أو تام أيضا إلهي السيو المهدن إلهي قال ذا أو سوقاد وح أودنا ولي بكوب يركأ marka aniga waa soo koob qofka u baahan channelkeeda wuu ka soo daawan karaa wuu soo fiirin karaa sida xaaladii u dhacday kule insha Allah ayadan waxaa fiican inay iscaburnin oo banaanka ay soo dhigto wax walba ay qabto si xanuunka markaas ay uga qafiifo qofka markii uu xanuunkiisa oo qarsanayo aad iyo aad u xanuun badan tahay laakiin marka banaanka aad soo dhigtid waa nafisaysaa waxyaabo badan iska ka bedelayo marka يلا دين أيضا بإلمك laga qaatay maxay YouTube soo fadhisaa waqtigeeda u gelinaysaa may saasa dhin YouTube kaas waxay ka qaadaysaa awooday ka qaadaysaa oo waxay ka qaadaysaa inay farxad ay raadinayso darteeda waay niyadan ha ka dilina hooyooyinka ilmaha laga qaatay niyada ha ka dilina wax aysan heer aysan gaarinna muxuu ahaa yacni ha dhihina heerkaas ay gaarin ha dhihina marka walaalay qaaliga waxaa idinka codsanaa insha Allah inaa soo duceysiin jimco waaye maanta إلهي سبحانه وتعالى إن جمعة هو تعدود غيرك وافق إله حنا قديقو نسأل نبينا أبدنا عليه الصلاة والسلام يلا بعدهم كجوكتان عافمات الله يدين كسيو سو دوادا إذن الله هاي ولا شيء نودعي سين شير قري سد عبدنا وهالشي إن شاء الله وحان إذن كعد سنة إنا ما شاء الله كلي آدم سو قرن وحنون كذا على قيب 60 وأوسو قرتين كومنتي دعاء وقلبك بني آدم كحتا وكفر حاي إن شاء الله انت فيديو مثل أكو كل مدن وحيدك كسيتها السلام عليكم.